walaalayaal markaa ah dhibaatada ay leedahay darteed ilaahay hadduu idmo subxaanahu wa tacaala waxaan wax ka sheegaynaa ahwaalaha iyo dhibaatooyinka qiyaamaha uu leeyahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamaha wuxuu ku tilmaamay ama uu uga digay dadka, markaasuu yidhi yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum, wardadow ilaahiina ka cabsada. waayo maalinta qiyaame ahwaasheeda iyo dhibaatada jirta waxa looga fagtoo lagu badbaado ayaa cabsida ilaahay ah subxaanahu wa tacaala. idan dadow ilaahiina ka cabsada. adduunku saan ma noqon doono, wax badana isbeddelaayo. inna zalzalata asaacati shay-un cadiim. saacadda qiyaame gadgadoonkeeda iyo ruxashada ay wadato waa shay cadiim ah buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. yowma tarawnahaa, waa maalin buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala aad arkayso tadhalu kullu murdicatin camaa ardacat, inay hilmaamayso naag walba oo wax nuujinaysay wixii ay nuujinaysay buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. howlkaa iyo dhibaatada jira darteed naag walba oo ilma jilbaha u saarnaa oo nuujinaysay way hilmaamaysaa buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. watadacu kullu daati xamlin xamlahaa, naag walboo uurka wax ku waday waa dhigaysaa buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. howlka iyo dhibaatada iyo mashaqada jira darteed bannaankay u soo bixinaysaa. watara annaasa sukaaraa, dadkii waxaad arkaysaa inay sarqaan yihiin oo dad wareersan oo kale ay yihiin. wamaa hum bisukaaraa, ma wareersana, laakiin wixii sidaa ka dhigay wuxuu yahay walaakina cadaaba allaahi shadiid. cadaabka ilaahay oo maalintaa jira ayaa mid shadiid ah oo adag markaa ah. qiyaamahaas ayaa qof kastoo annaga naga mida sugaaya. ilaah subxaanahu wa tacaala hortiisaa la tegi doonaa. qof walbaa wixii uu sameeyaa laga xisaabi doonaa. qof walbaa wuxuu abaalmar u helu ilaah siin doonaa. dadkaa laba u kala qaybsami doona, fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir. intaanan u gudagelin howlkaa qiyaamaha iyo mashaqada iyo dhibaatadaa jirtaa, wax yar waxaan ka hormarinaynaa geerida iyo arrimaha ku tacalluqa iyo sida ilaah subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay ruux walba inuu u xayaato baxo. ilaahay kitaabkiisa munasalka waxa uu ku yidhi kullu nafsin daa'iqatu lmowt, naf kastaa geeri ayay dhadhaminaysaa buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. naf walboo xayaato la geliyey ayuu ilaahay xayaatada ka bixinaa subxaanahu wa tacaala. wa fii yowm min alayaam kullu nafsin daa'iqatu lmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama. waxa hadda aad qabanaysaan oo camalo ah ajiryaalkiisana maalinta qiyaamahaan idiin oofinaynaa buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. kullu nafsin daa'iqatu lmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama. faman zuxzixa can innaar waudkhila aljannata faqad faaz. qof walba oo cadaabka laga durjiyo oo naarta laga dhaqaajiyo oo jannada la geliyo ayaa liibaanay buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. liibaanta xaqiiqdaa waxaa gaaray qofkii inta ilaahay cadaab ka durjiyo janno uu markaa geliyo. faqad faaz. wama alxayaatu addunyaa ilaa mataacu lguruur. noloshaan adduunkii aad ku sugan tihiinna ma ahan buu dhahay ilaah ilaa raaxo yar oo kada ah oo dadka sirtaa maahana wax kale. haddaba qof walbaa waa dhimana. wuxuu ka tegaa nolosha adduunka, wuxuu aadaa nolosha aakhiro. qof walbaa ilaahay xayaatada ayuu ka bixinaa marka ajashiisa la gaaro. oo ilaahay wuxuu yidhi ummad kastaa ajal ayay leedahay. faidaa jaa'a ajalhum laa yasta'khiruuna saacatan walaa yastaqdimuun. ajasheeda haddii la gaaro saacadna laga dibdhigi maayo, saacadna loo hormarin maayo buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. haddaba walaalayaal waxaana sugaaya xayaato baxa, waxaana sugaaya sakaraad aad iyo aad u dhibaato badan. waxaa aad iyo aad u fiican inaan u diyaargaroobno si ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noogu naxariisto marka la gaaro ajasheena iyo dhimashadeena. qof walbaa wax buu ilaahay ku sababaa subxaanahu wa tacaala.
qofaa wuxuu ku dhimanaa shil baabuur, qofaa wuxuu ku dhimanaa macrika iyo dagaal, qofaa wuxuu ku dhimanaa asagoo gurigiisa jooga, qofaa qof kale lagu sababaa. ilaahay ajasha sabab ayuu u yeelaa subxaanahu wa tacaala. wamaa kaana linafsin an tamuuta ilaa biidni illaah kitaaban mu'ajala. naf ma dhimata buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala, ilaa hadday dhimanaysana waa idin alla subxaanahu wa tacaala. kitaab ayay ku dhimanaysaa mu'ajal ah oo loo madaleeyey subxaanahu wa tacaala. haddaba xayaato baxaa dhibaato aad iyo aad u xanuun badan ayuu leeyahay. sakaraad dhibaato badan ayuu wataa oo ilaahay uu yidhi wajaa'at sakratu lmowti bilxaq. waxaa yimid sakaraadkii meydka oo xaq ah buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. daalika maa kunta minhu taxiid. waxaad ka leexleexan jirtay oo aad ka fakan jirtay ayaa kan ah ayaa loo dhahayaa qofkii. haddaba marka sakaraadkaa dhibaatada badan la gaaro, ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa haddaan aaminno, ilaahay waa noo naxariisan doonaa cinda ixtidaarinaa, marka ay nagu soo xaadirta geerida. laakiin haddaan macaasi ilaah ku socono oo ilaahay aan caasino subxaanahu wa tacaala, aan ka tagno daacadiisa iyo diinkiisa, ilaahay nooma naxariisanaya subxaanahu wa tacaala marka sakaraadkeena iyo xayaato baxeena markaa la gaaro. rasuulka waa sakaraaday salawaatullaahi wasalaamun calayh. caaisha waxay tidhi markaan arkay sakaraadka nebiga, wallaahi sakaraad ka dambeeyaa kama naxin markaan arkay. nebiga salawaatullaahi wasalaamun calayh, allaahuma acinnii calaa sakaraati almowt wa ghamaraati almowt ayuu dhahayay bay tidhi caaisha. ilaahayow iiga gargaaroo iiga kaalmay sakaraadka xanuunkiisa iyo dhibaatada markaa uu wato. inna lilmowti la sakaraat ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. meydka wuxuu wataa sakaraad aad iyo aad u xanuun badan oo dhibaato badan. sakaraadka ayaa qofka soo xaadiraaya oo u soo gelaaya. ilaahay ayaa ka hadlay subxaanahu wa tacaala, kallaa idaa balagat altaraaqiya waqiila man raaq buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. wardadoo waxaad ka warantaan marka nafsadda ay kalxamaha soo gaarto oo qofka xayaato bax uu gaaro oo yaqiinsada inuu adduunka ka tegaayo, kallaa idaa balagat altaraaqiya waqiila man raaqa. dadkuna ay dhahayaan yaa ku tufaaya maanta, yay tuftiisa anfici doontaa qofkan. waqiila man raaq wadanna annahu alfiraaq. qofkaa sakaraadka ahna yaqiinsaday inuu faaruqayo buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala, inuu adduunkaba ka socdo ayuu markaa yaqiinsaday, inuu meeshaa ka tegaayo ayuu yaqiinsaday. maanta wixii ka dambeeya inuusan ehelkiisa iyo xaaskiisa iyo ilmihiisa uusan arki doonin uu ka dhex baxaayo ayuu yaqiinsaday. maanta wixii ka dambeeya inuusan wax la cuni karin, wax la cabi karin, oo la sheekaysan karin ayuu yaqiinsaday. sidaa darteed ayuu ilaah subxaanahu wa tacaala yidhi, dadku waxay leeyihiin man raaq wadanna annahu alfiraaq. qofkaana wuxuu yaqiinsaday faaruqitaan uu adduunkii faaruqaayo. faaruqitaan gogoshiisii iyo gurigiisii iyo ahalkiisii uu faaruqaayo ayuu yaqiinsaday buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. haddaba sakaraadkaa dhibaatada badan ayaa aad iyo aad u wanaagsan inaan xasuusnaano mar walba oo qalbigeenna uu ku jiro. nebigu wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamuhu calayh, akfiruu dikra haadimu alladaat. waxaad badisaan xusuusashada midka dadka macmacaanka ka gooya, xusuusashadiisa badiya ayuu yidhi salawaatullaahi wasalaamun calayh. yacnii almowt, geerida ayaa loola jeedaa. macmacaanka ayuu dadka ka gooyaa, wuxuu dadka ka bixiyaa guryahoodii ehelkooda, wuxuu geeyaa luxdi iyo god iyo qabri ciriiri ah oo mugdi ah, onus iyo wehelna aan uga horaynin ayuu dadka geeyaa. sidaa darteed ayaa dadka muslimiinta ah waxay ku jiraan khaflo iyo halmaan, waxaana u soo dhowaatay wakhtigii loogu talagalay inay adduunka faaruqaan. ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala, asagoo sakaraadkaa dhibaatada badan xanuunka badan dadka u tilmaamaya, falowlaa idaa balagat alxulquum. waxaad ka warantaan dadow haddii nafsadda lasoo duuduubo
oo xayaata baxa qofka uu gaaro oo kalxamaha iyo meesha ugu dambaysa ay marayso falowlaa idaa balagat alxulquum wa antum xiinaidin tanduruun idinkana aad fiirinaysaan buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala qofkaa ixtidaarka ku jira ee sakaraad ka saaran aad fiirinaysaan ayuu ilaahay dhahay ka warrama xaaladiisa iyo xaaladiinaba wa antum xiinaidin tanduruun wanaxnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruun anagaa idinkaga dhow buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala ninkaa xaalkiisa laakiin nooma jeediin malaa'igtii nafta qaadaysaa meesha joogta oo idinkaga dhow qole idinka mid ahi biyay ku taslinayaan qofkii koru uga soo noqonaa indhihiisii ayaa isbeddelaaya babis ayaa lagu boobaa waxyaabo fara badanaa lagu samaynaa qofkiina sakaraad waaye ilaahay wuxuu ugu talagalay maanta inuu xayaatada faaruqiyo ou ka taga adduunka lana geeya barsaq sidaa darteed uu ilaahay dhahay subxaanahu wa tacaala wanaxnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruun laakiin ma noo jeediin walaakin laa tubsiruun falowlaa in kuntum hayra madiiniin haddii aad tihiin kuwa aan la abaalmarinaynin oo qiyaamo aan jirin tarjicuunahaa in kuntum saadiqiin buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala qofkaa xayaata baxayo dhimanayo nafta ku celiyaba haddii aad run sheegaysiin macnaha waxaa loola jeedaa qofkaa idinka dhimanaya haddaad ruuxda ku celisiin qiyaamo ma jirtee waxaad doontiin sameeya laakiin haddii xayaatada lagu celin waayo diyaargarooba qiyaamaa jiro ilaa hortiisaa la tegaa subxaanahu wa tacaala haddaba qofka sidaa ayuu u sakaraadaa dhibaato fara badan ayuu ku jiraa sakaraadka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofku inuu jannada galo 70 buurood ayaa ka xigta sakaraadka ayaana ugu sahlan subxaana allah sakaraadka waa buurta ugu fudud buu dhahay sala allahu calayhi wasalam inta kale waa ka sii adag tahay waana ka sii dhibaato badan tahay maca daalika dadkii maanta waxay galeen khaflo waxay galeen halmaan waxay hilmaameen geeridii sidaa darteed ayuu ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu ballan qaaday naf walba oo geerida hilmaanta inuu ilaahay cadaabka ku hilmaamo subxaanahu wa tacaala falyawma nansaakum kamaa nasiitum liqaa'a yawmikum haadaa buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala maanta waxaan idinku hilmaamaynaa naarta gudaheeda saad maalinteenaan u hilmaanteen oo kale ayaan idinkugu hilmaamaynaa cadaabka idan dadku waa inay aad u xasuustaan geerida cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi nebiga ayaa garabkayga qabtay markaasuu dhahay yaa cabdallah kun fi ddunyaa kaannaka qariib adduunku waxaad ku noqotaa sidii nin musaafir ah oo kale ow caabiri sabiil ama nin wadda gudbaaya oo kale noqo ayuu ii yidhi buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam ninka qariibka ee musaafirka ah oo kale noqo musaafirka aan waddankiisa joogin guryo kuma dhisto rartiisa kuma furta meesha wuxuu og yahay wakhti yar ka bacdi inuu meesha faaruqaayo ee markaa uu ka tegaayo adigana saasoo kale noqo oo geerida u diyaargaroow adduunka musaafir ku noqo ow caabiri sabiil ama nin waddo laami ah gudbaayoo kale waayo laamiga qofku markuu rabo inuu gudbo labada dhinac inuu iska fiiriyo ayuu gudbaa ma dhex fadhiisto saasoo kale noqo ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam haddaad subaxdii gaarta galabtii ha sugin haddaad galabtii gaartana subaxdii ha sugin noloshaada u qaado geeridaada caafimaadkaaga jiradaada u qaado mar walbaa diyaar noqo adigoo diyaara maniyada iyo geerida iyo yaqiinta ha kuu timaado sidaa ayuu nebigu kula dardaarmay sala allahu calayhi wasalam haddaba qof kastoo muslima dardaarankaa inuu fuliyo ayaa shay lagama maarmaan ah oo loo baahan yahay nin ayaa nebiga u yimid salawaatuullaahi wasalaamuhu calayh markaasuu dhahay rasuulkii allah waan ku jeclahay rasuulku wuxuu yidhi cud nafsaka almowt naftaada waxaad ku tirisaa dadka geerida ah weligaa xayaata ha ugu sheekaynin nafsadaada weligaa waa noolaanaysaa ha isdhihin tuulul amal yareey iyo didiilada yarayso sidaa ayuu nebigu kula dardaarmay sala allahu calayhi wasalam dadku markay adduunka jeclaadaan oo geerida ay hilmaamaan oy nacaan cadow ayaa lagu sallidaa sida rasuulku uu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam waxaa soo degdegaysa buu yidhi an tadaaca alumam
ummadaha gaalada ah inay isukiin wacato haddaad muslimiin tihiin sida xeerada raashinka laga cunaayo saaxiibahooda iyo dadka cunay isugu wacdaan oo kale ayay gaaladu isku kiin wacan doontaa oo dhinac ay idin kala jiidan doontaan haddaad muslimiin tihiin asxaabta nebigu waxay ku dhaheen awa min qillatin yaa rasuula allah yaraan aan yarnahay darteed may maalintaas gaalada saas noo yeelayaan maya buu dhahay nebiga bal antum kaiiruun aad ayaad u fara badan tihiin laakiin badnaantiinnu faa'iida ma leh oo waxaad noqonaysaan guhaa ka guhaa'i sayl xumbada wasakhda ee roobka biyaha uu soo qaado oo kale ayaad la mid noqonaysaan ilaah subxaanahu wa tacaala qalbigiina gaalada qalbigooda ayaa haybadda idinka aad leedihiin laga bixina qalbigiinana wahni ayuu ilaah ku soo tuura subxaanahu wa tacaala wama alwahnu yaa rasuul allah bay dhaheen asxaabta wahnigu muxuu yahay rasuulka ilaahayow qaala xubu اdunyaa wa karaahiyat اlmowt waa noloshoo la jeclaado iyo geerida oo la naco ayaa loola jeedaa buu dhahay salawaatu ullaahi wasalaamun calayh maalintaad geeri nacdaan oo aad jeclaataan nolosha gaalada ayaa saa is-idin yeeli doonta buu dhahay salawaatuullaahi wasalaamun calayh asxaabta nebiga waxay ahaayeen salawaatuullaahi wasalaamun calayh kuwa geerida jecel oo xayaatada neceb sida dadka maanta jooga nolosha ay u jecel yihiin oo geerida ay u necab yihiin rasuulku wuxuu yidhi salawaatuullaahi wasalaamun calayh qof walba oo la kulanka ilaahay nacaa ilaahay la kulankiisa ayuu nacaa subxaanahu wa tacaala waman axabba liqaa'a allah axabba allah liqaa'ahu qofkii inuu ilaahay la kulmo jeclaada inuu dhinto ciyow aakhiro aada jeclaada ilaahay la kulankiisuu jeclaadaa subxaanahu wa tacaala xaasaska nebiga mid ka mida ayaa tiri kullunaa nakrahu almowt rasuulkii allow dhammaanteen geerida waa necabnahay rasuulku wuxuu yidhi saas ulama jeedi laakiin waxaan ka wadaa qofka mu'minka ah marka lagu soo xaadiro oo sakaraadkii xayaatabaxa uu gaaro oo naftiisa lasoo duuduubo kalxamaha ay soo gaarto ayaa la tusiyaa wanaagga ilaah agtiisa uu ku leeyahay subxaanahu wa tacaala waa loogu bishaareeyaa wanaagga ilaah agtiisa uu ku leeyahay ma jiro shay uu kaga jeclaan badan yahay inuu rabbi la kulmo ilaah la kulankiisuu jeclaadaa markaasuu ilaah la kulankiisa asagana jeclaadaa subxaanahu wa tacaala amaa munaafiqa iyo qofka aan ilaahay aaminsanayn marka lagu soo xaadiro sakaraadka uu gaaro ayaa la tusiyaa dhibaatada qabriga ciriiriga mugdiga iyo cadaabka alla agtiisa uu ku leeyahay subxaanahu wa tacaala ma jira shay uu kaga naceeb badan yahay inuu ilaahay la kulmo subxaanahu wa tacaala la kulanka alla ayuu nacaa markaasuu ilaah asagana la kulankiisa nacaa subxaanahu wa tacaala haddaba laba si ayaa loo kala dhintaa dadka mu'miniintae ilaah rumeeyey subxaanahu wa tacaala hab nadiif ah oo wanaagsan ayay u dhintaan kuwa kaafiriinta ah oo rabbi diidayna si silac iyo dhibaato badan ayuu ilaah nafta uga qaadaa subxaanahu wa tacaala waannaasicaati garq waxaa loola jeedaa malaa'igta naasicaadka ah ee nafsadda gaalada siibtaa qarqiga waxaa loola jeedaa si dhibaato badan oo maashood ah ayay xayaatada u siibtaa waannaasicaati garban waannaashitaati nashta waa malaa'igta mu'miniinta ka qaada xayaatada si nashti ah oo fudud oo jilicsan buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala kaafirka waxaa lagu miisaalaa musbaar dhagax ee meel bir ah ku surnaa ama meel bir ah ku surnaa oo laga siibaayo oo kale ay xayaatada looga qaadaa amaa naashitaadka waxaa lagu miisaalaa hal tin cajiin ku dhegtay sida looga soo qaado oo kale saas ayaa mu'miniinta ayagana xayaatada looga bixiyaa maca daalika buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam qof walbaa ha ogaado xayaata baxaas inuu markaas soo maraayo nebiga xadiis ayuu ku yidhi ina almu'min yamuutu bicaraqin jabiin qofka mu'minkaa waa dhintaa asagoo dhafoorkiisa uu dhididaayo ayuu dhahay salawaatuullaahi wasalaamun calayh mu'minka wuxuu la dhintaa dhafoor dhidid qolo muxadisiinta ka mid ah ayaa waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa xayaata baxa iyo sakaraadka ayaa waxoogaa lagu adkeeyaa qofka mu'minka ah sababtu waxay tahay qaladaadka iyo gafafkii yaryarkee ka dhacay ayaa looga nadiifiyaa si qabriga loo geeyo asagoo nadiif ah oo wax dembiya aan lahaynna beri ilaahay uu la kulmo subxaanahu wa tacaala amaa munaafiqa waa loo celiyaa waa loo kaydiyaa ilaa dembigiisa asagoo buuxa ilaah uu la hortaga subxaanahu wa tacaala
mu'minka dhafuurdhiid ayuu la dhintaa. muxadisiinta gobol waxay yidhaahdeen saa loolama jeedee waxaa laga wadaa asagoo dadaalaayo, qiyaamuleelka ku dadaalaayo, soonka ku dadaalaayo, cibaadaadka ku dadaalaayo, oo xalaasha ku dadaalaayo ayuu dhintaa ayaa loola jeedaa. qofka mu'minkaa asagoo dhafoorkiisu dhididaayo oo dadaalaayo, xalaasha ku dadaalaayo, xaaraanta ka ordaaya, kelimada tawxiidka ku dadaalaayo, sidaa ayuu markaa ku dhintaa. haddaba labada si ayaan kala qaadaynaa, qof kaafir oo dhimanaayo iyo qof mu'min ah oo dhimanaayo, habkay u kala dhintaan iyo sida ilaah uu u tilmaamay subxaanahu wa tacaala. waxaan ku hormaraynaa qofka kaafirkaa dhimashadiisa, ama ilaah ninka diiday subxaanahu wa tacaala. qofka noocaasee ilaahay aamini waayey, ama gabar ilaahay diinkiisii diiday, xijaabkii islaamka qaadaa lagu kari waayey, salaadii ilaahay dukaan lagu kari waayey, xijaabka ilaaha qaada marka la yidhaahday kugu jawaabaysaa kuleel ayaan u dhimanaa, marka ilaahay diinkiisa raac la yidhaahday kugu jawaabaysaa casaga lama socda diinka, marka aad dhahdo war walaalay ilaahay ka cabso oo waxaan jooji, waxay kugu jawaabaysaa hadalla aan loo baahnayn. xaaladdu haddii sidaa la gaaro ayuu ilaah ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala habka iyo qaybtay markaa u dhimanayso. dadkaas ayaan ka hadlaynaa, dumarkii xijaabka ka tegey oo ilaahay diinkiisa lagu kari waayey, oo mar walba xaaraan maahane xalaashii lagu kari waayey, baatil maahana shay xaqa la diiday. dadkaa habkay u dhimanayaan. qof walbaa sakaraadkiisii wakhtigiisii markii la gaadho meeshii xayaatada looga qaadi lahaa ayuu ku dhacaa. meeshaa marka uu ku dhaco ehelkiisii waa u soo gurmanayaan. waa tii hadda aan tilmaannay ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala kallaa idaa balaqat itaraaqiya, naftu markay kalxamaha soo gaarto waqiila maraaq, yaa tufaayaa la leeyahay. ardadii dugsiga dhiganaysaa loo soo wacaa, macallimiintii dugsigaa loo soo wacaa. intaa inay wax anfacda tuftiisa ayaa la rabaa, laakiin sakaraad haddii mar la gaadho wax anfacayaa ma jiro. tabiibaan wax taraynin, daabaan wax anfacaynin, wax anfacayaa ma jiro. rasuulkuna wuxuu yidhi salawaatuullaahi wasalaamun calayh, geedka xabatu sawdaha la yidhaahdo shifaa'un, wuxuu daawo u yahay cudur kasto ila asaam, yacni almowt, ilaa geeri maahane, dhimasho maahane, waxa kale oo dhan wuxuu u noqonaa buu dhahay nebiga daawo. sidaa darteed dadku waa kala ordaayaan. qofkan sakaraad ayuu joogaa, xayaato bax ayuu ku jiraa, indhihiisii ayaa isbeddelay, jasadkiisii ayaa kala qalalay. dadku waa u soo kala ordaayaan. kii tufta fiicnaa aa loo wacaa, daawoba daawadii ka qiimo badanaa loo samaynaa, dadkii wax fiirinaya kutubaha fiirinayaa loo tegaa, waxaasoo dhanaa loo samaynaa. asagiina waa sakaraad. waqiila maraaq, biyaa lagu taslinaa, waa loo babbinaa, xayaatadii lugaha laga soo bixinaa, jilbahaa loo keenaa, jilbaha laga qaadaa, waxaa loo keenaa meesha marada laga xirto, waa la qaadaa, kalxamaha iyo meesha ugu dambaysaa la geynaa. qofkan munaafiqa ah oo hadda ilaahay diinkiisa diiday, waxaa dhici karta in tawxiidka loo laqino oo la yidhaahda laa ilaaha ila allah dheh, asagana uu awoodi waayo. sababtu waxay tahay laa ilaaha ila allah waxaa dhihi kara qofkii aaminsanaa oo diinka ilaahay raacaya subxaanahu wa tacaala. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إلهي كلمة ثابتة ضعا سوغان توحيد كان لولا جيداي وكسوغا ضدك مؤمنين تقع آخرة إي أدون وحالو لجيدا أدون كان عند السكرات آخرنا مركا قبرك اللي ويديو هدو وانشيق دوناي أساقنا وغسوغا بوطاي إلى سبحانه وتعالى. laakiin qofkan munaafiqa ah ee ilaahay diinkiisii diiday, gabadhan faajiradu ilaahay diinkiisii lagu kari waayey, laa ilaaha ila allah dheh haddii la yidhaahdo waxaa laga yaabaa inaysan markaa dhihin, ay awoodi waayaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa gefinaa, jidka toosanaa la gefinaa. sababtu waxay tahay ayagaa ka caado dhigtay wixii xumaa. qofka adduunka keligiis raacaa xaaladiisu sidaa ay tahay. maca daalika waxaa la soo wariyaa dad fara badan oo sakaraad ahaa, la yidhi laa ilaaha ila allah dheh, sidii nin dhimanayey ee la yidhi laa ilaaha ila allah dheh. sakaraadkii ugu dambeeyuu ku jiray, markaasuu dhahay geelaygii meeqa waaye, ilmahaygii yaan ku ogahay, laa ilaaha ila allah dheh. afkiisa waxaa laga waayey kelimad aan ahayn ilmahayga yaan ku ogahay iyo geelaygii meeqa waaye, intaasaa laga kari waayey. laa ilaaha ila allah dheha la yidhi waa su'ul khaatima.
إلهي قاتمة قفية سبحانه وتعالى خاتمة إيسا لحميي قفك مركو إلهي دينك إيسا كد ذالي وايو إلهي قاتمة كحميي سبحانه وتعالى إسلام من إيسا ليري لا إله إلا الله ده تواكدها اللي يسودني بأي كسور علسي waxaa dhanba shay xaqiiqa ah oo dhacay waaye dadka mu'miniinta u dadaala xusuusnaadana geerida sida rasuulku noola dardaarmay sallallahu alayhi wasallam hadii geeligii aaway aad tiri geelaagu maalinta aqir wuxuu ku anfacayaa ma jiro xoolaha waxay ku anfacayaan ma jiraan ilmaha waxay ku anfacayaan ma jiro man kaana aakhiru kalaamuhu laa ilaaha illa allah dakhala aljanna qof walba warkiisa ugu dambeeya laa ilaaha illa allah oo noqda jannadu galaa buu dhahay nabiga sallallahu alayhi wasallam ay ku xasuusiyeen adigana ilaahu ku gabsiyay subhanahu wa ta'ala hadaba dhibaato aad iyo aad u weyn waaye malaa'ikta sakaraadka ah malaa'ikta nafta gaalada qaada u iimaanayso إلى وحير فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم سي حالته نقونيسا كوا وكوا هذا أنك هذلينو مركي دمنايان ملائكتنا إيسو جليسو أي هرئي كذلك تمي سبوراي إلى سبحانه وتعالى ولهم مقامع من حديد قروم برك سميسان أي وطان ما قصة كراب أيات أركتو سررت أن لغو علين كرن هرئو قصو بودايو دادكو أيكو علينايان فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم قرد كذلك قراع ينبوضي إلى سبحانه وتعالى ولبئنوا انت مربوا منك منافقة أما كافر كدينك أن رعصنين إلهي محوضي سبحانه وتعالى أصدقوا أرنتا كهدلاي حالة ضدك ظالمين تأمرك لمنا ينسي حالة ضد نقنيسا ولو ترى وقتك حالتنا سي نقونيسا وقتك او ملائكته اي نفتك قاديسو او مر الله مركي ملائكته u timaado baasidu aydiyahum gacmahooda u soo fidinayaan oo ay leeyihiin akhriju anfusakum naftina soo bixiya al-yawma tujzawna 'adab al-hun maanta waxa leedinku abaal marina cadaabkan ugu xumbuuday ila subhanahu wa ta'ala akhriju anfusakum markii malaa'iktu leeyihiin waxaad ka fahmaysaa qofkan inuu dhinto ma rabiyo xayaatadii u celina adeegiina waa soo taagayaan gacmahooda waxay rabaan inay xoog uga qaadaan buuday ila subhanahu wa ta'ala akhrijuu anfusakum alyawma tujzawna cadaaba alhuun maanta waxaa laydinku abaalmarinaa cadaabkan ugu xun oo ugu dulisan buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala cadaabkan ugu xun ayaa laydinku abaalmarinaa ee nafsadiina keena ha celinina saasaa loo leeyahay buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala maalinta xaaladdaa la gaaro waa maalin aad iyo aad u cajiib badan qofkan dadka dhaalimiinta ah sidaas ayay u dhintaan buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala walow tara id الظaalimuuna fii ghamaraati اlmowt waxaad iiga warantaan wakhtiga dadka dhaalimiinta ah ay ku jiraan ghamaraatu اlmowt macnaha sakaraadka meydka ay ku jiraan waalmalaa'ikatu baasituu aydiihim malaa'igtana ay gacmahooda u soo fidinayaan oo ay leeyihiin akhrijuu anfusakum naftiina soo bixiya alyawma tujzawna cadaaba alhuuni bima kuntum taquuluuna cala allah keena nafsadiina ha celinina adduunkan waa ka tegaysiin ee keena ayaa loo dhahaa buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala maanta waxaa laydinku abaalmarinaa cadaabkan ugu dullisan waana bima kuntum taquuluuna cala allahi hayra alxaqi waa ilaahay dushiisa xaqla'aantii aad ku dhihi jirteen iyo wa kuntum can aayaatihi tastakbiruun isweynaysiiskii aad aayadaha ilaah iska weynaysiinayseen mar walba oo laydin wacdiyo diin laydiin sheego xaq laydiin sheego waxaad ahaydeen kuwa ka orda oo diida idan soo bixiya nafsadiina naftaa sidaa looga qaadayaa aayad kale wuxuu ku dhahay ilaah ina aladiina tawaffaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim kuwa daalimiintaa markay malaa'igtu oofsanayso qaaluu fiima kuntum maxaad ahaan jirteen ayaa la leeyahay qaaluu kunnaa mustadcafiina fi اlardi waxaan ahayn bay leeyihiin kuwo arlada lagu daciifsado ilaahay diinkiisa ayaan ku caabudi weynay waana loo diiday xaqii inaan raacnaana loo diiday
malaa'igtu waxay leeyihiin alam taku ardullaahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha arlada ilaah waasac ma ahayno maxaad ugu haajiri weyseen fa ulaa'ika ma'waahum jahannamu wasaa'ad masiir kuwa hooyadkooda jahannamo waaya buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala suu u sakaraadaya qofkii daalimkaa xayaatadaa ka baxayso xayaatada marka ay baxaysa nebigu wuxuu yidhi ruuxdu markay dhimanaysa ittabacahu albasar indhaha ayaa raacaya weli wuxuu dadka amri jiray qofka sakaraadkaa in indhaha loo celiyo oo indhaha loo laabo ruuxdu markay baxaysa buu dhahay nebiga ittabacahu albasar indhaha kor ayay u raacayaan qofkaa nafsaddiisa markay baxdo waxaa la geynaa xayaatadii ama ay aadaysaa samada uqliqad duunaha intaysan gaarin ayaa laga soo xiranaa waana la soo celinaa ilaahay ayaa yidhi kallaa inna kitaaba alfujaari la fii sijiin wamaa adraaka maa sijiin kitaabun marquum dadka daalimiinta kitaabkooda sijiin ayaa loo celinaa waa meel xun oo hoosaysa oo 7 arla ugu hoosaysa meeshaasaa loo celinaa idan waxa fiican oo tayibka ayaa ilaahay u koro aada amaa waxa kale waa laga soo celinaa qofkii markii xayaatadii ay saas uga baxday oo ehelkii meesha ay joogaan waxay gudagalaan in la nadiifiyo oo la dhaqo oo la duugo waayo qofku markuu dhinto qof wax ku falayaa ma jiro magaciisii ayaa baaba'ay meydka ayaa lagu leeyahay markaad nooleed dadku waa ku jeclaayeen markaad dhimato dadku waa ku nacaayaan xoolahaaga sariirtaada lagugu dhaqi maayo waxaayoo dhanba waxay gelayaan dhaxal qofka mu'minkow rabbigaa ka cabso subxaanahu wa tacaala sahay fiican samayso ilaahay diinkiisa ku dadaal cali ibni abi taalib ayaa qubuuraha tegey baa la yidhi markaasuu la hadlay dadka qabriga ku jiray wuxuu yidhi yaa ahlulqubuur dadkan qubuurta ku jirow xaaladdiinaan idinkaga warramaa ee dhegaysta xoolihii aad ka soo dhimateen qad qusim waa la qaybiyey naagihii aad ka soo dhimateen qad zawaj waa la guursaday ilmihii aad ka soo dhimateen waa barbaareen oo waa koreen xaaladdiina adduunka waa sidaa ee idinka xaaladdiinna nooga warrama faqushiya cali waa suuxay radia allaahu tacaala canhu waa soo kacay hadalkii ayuu ugu celiyey waa ooyey radia allaahu tacaala canhu wuxuu yidhi wallaahi ahlu qubuur hadday ii soo jawaabi lahaayeen waxay i dhihi lahaayeen watasawaduu fa inna khayra azaadi attaqwaa ma dhihi lahayn meel wax dhigta ma dhihi lahayn adduunka ku sii socda ma dhihi lahayn nafsaddiina u raaxeeya ee waxayna dhihi lahaayeen sahay soo qaata sahay la qaata taqwada iyo cabsida ilaah ayaa u weyn subxaanahu wa tacaala una khayr badane wallaahi hadday ii soo jawaabi lahaayeen waxay dhihi lahaayeen buu yidhi watasawaduu fa inna khayra azaadi attaqwaa sahay soo qaata oo cabsi ilaahay ah subxaanahu wa tacaala haddaba qofka haddii ilaah taqwadiisa laga waayo xaaladdiisaa sidaas ahee daalimkan dhintay dadku waxay gudagalayaan in markaa la duugo gabadhii dahabkeedii waa laga furaa saacaddii kuu xirneedaa lagaa furaa dharkaagii qiimaha badnaa ayaa lagaa reebaa waxaa lagugu karfanaa 2 maro ama 3 go oo cadcad ah ama hal keliya intaas ayaa lagu siinaa sidaa darteed ayaa mufasiriinta markii ay fasiraayeen aayaddii ilaah subxaanahu wa tacaala ee uu yidhi walaa tansa nasiibaka min addunya ha iloobin nasiibka adduunka waxaa loola jeedaa karfantaada iyo dhulka lagugu duugaayo taa ha hilmaamin inta kalena taqwada ilaah ku dadaal subxaanahu wa tacaala sidaa ayaa loola jeedaa ayay markaa yidhaahdeen haddaba qofka muslimkaa xayaata baxaas iyo dhibaatadaasaa sugaysee waa inuu diyaargaroobaa laakiin hadda waxaan ku jirnaa faajirkii iyo faajiraddii dhimashadooda waa la nadiifinaa sida dadka loo dhaqaa marka sidaa loo wanaajiyo karfanta la geliyo ilaah muxuu dhahay subxaanahu wa tacaala waltafat issaaqu bisaaq ilaa rabbika yowmaidin ilmasaaq waxaa loola jeedaa labadiisii lugood ayaa laysku dumayaa si karfanta loo geliyo go'i cadcadda ayaa loo gelinaa waxa loo wadaana waa qabriga meeshaasaa lagu diyaariyey qofkii daalimka ahaa ee ilaahay diiday subxaanahu wa tacaala maxaa la samaynaa marka
waxaa la samaynaa in layska qaado, waayo qof wax ku falayaa ma jiro. dadkiisii iyo ehelkiisii way iska dhaqaajiyeen, nasiib xumo ilaah agtiisana wanaag ma dhiganin. marka qofka janaasada lagu qaado oo sariirta meydka la geliyo, rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, rag ayaa acnaaqdoodii qoorahooda ku qaada janaasada. fa in taku saalixa, naf fiican haddii ay tahay, faqaalat qadimuunii qadimuunii. hadhow ayaan arki doonnaa markaan muslimiinta ka sheekaynayna habkay u dhimanayaan. hadda waxaan u soconaa dadka daalimiintee, wa in taku sawiyu daalika buu dhahay nebiga, mid aan fiicnayn hadday tahay, waxay leedahay yaa waylahaa ayna tadhabuunii bihaa, yaa waylahaa ayna tadhabuunii bihaa, haagiiniyo xaggeed ii wadaan. sariirtaa lagu tusay dhibaatadii iyo rafaadkii. haddana qabrigii ayaa loo wadaa, markaasuu leeyahay halaagiiniyo u celiya. ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi, xataa idaa jaa'a axadahum almowt qaala rabbi irjicuun. ilaahay ayaan idinku dhaariyeye i celiya, lacallii acmalu saalixan fii maa tarakt. waxaa laga yaabaa camal fiican inaan soo qabsado, adduunka iyo celiya fii maa tarakt. ilaah wuxuu yidhi, kallaa innahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa wa min waraa'ihim barzaqun ilaa yowmi yubcahuun. wax la celinayaa male. naf haddii ajasheeda timaada, walan yu'akhira allaahu nafsan idaa jaa'a ajaluhaa. ajasheeda haddii la gaadho celitaan ma jiro, meel loo celinayaa male. barsaq ayaa loo wadaa. weliba qofka inta janaasadiisa la sii wado ayay leedahay halaagiiniyow xaggeed ii wadaan, halaagiyow xaggeed ii wadaan i celiya. camal fiican ayaan soo qabanaa. codkeeda wax walba ayaa maqlaya buu dhahay nebiga, oo ilaahay qalqay, ilaa insi iyo jinni maahane. haddii la maqalsiin lahaa la saciquu, suuxdinay u dhiman lahaayeen buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. waayo qof ehelkaaga ah oo aad waddo janaasadiisa oo dhahaya yaa weylahaa ayna tadhabuunii biha, xalaaggeegiyo xaggeed ii waddaan, oo dhibaatadaasaa u qaylinaayo, wax duugi karaa markaa ma jiro. sida loo sii wado qabriga ayaa la geynaa. qabriga marka la geeyo, qofkii meesha la dhigo waa la duugaa. ilaahay ayaa yidhi subxaanahu wa tacaala, humma amaatahu faaqbarah. qofku waa dhimanaa waana la qabriyaynaa buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. humma idaa shaa'a ansharah. wakhtigii uu rabo ayuu ilaahay ka soo bixinaa qabriga subxaanahu wa tacaala. qofkan marka la wado oo qabriga la geeyo, dadka gobol ka mida waxay akhriyaan ama ay tilmaamaan wax la yidhaahdo talqiin. talqiinta noocaasa wax jiraa ma ahan. qofka muslimkaa mar walba ilaahay ayaa ku suga tawxiidka. talqiinta waxay dadku yidhaahdaan waa qofka marka uu dhinta wax loo laqino oo la yidhaahdo qul laa ilaaha ila allah. laba malag baa kuu imaanaysa. hadday laa ilaaha ila allah ku weydiiyaan saas dheh, nebigayga sidaa waayo dheh. xaaladaha noocaas ah wax sugan markaa ma aha. qofka hadduu daalim yahay, ilaahay ma waafajinayo subxaanahu wa tacaala. si kastoo talqiin loogu akhriyo, wax kasta oo loo sheego, hadduusan ku camalfali jirin laa ilaaha ila allah, xumaan uu ka hari jirin, wanaag uusan samayn jirin, ilaahay ma waafajinayo subxaanahu wa tacaala. qofkan marka qabriga la dhigo oo la seexiyo, carada ayaa lagu shubaa, waa la duugaa, waa laga soo tegaa. ilaah subxaanahu wa tacaala isla markii xayaato barsaqiye ah ayaa la soo noolaysiinaa. laba malag ayaa u imaanayaan. markay labadii malag u yimaadaan, waxaa la soo miisaalaa sida nebiga xadiiska bukhaariga uu ku tilmaamay, nin nebiga ah ayaa loo keenaa misaalkiisa. markaasaa la leeyahay, ninkan maxaad ka taqaanaa? waxaan ka hadlaynay gabar ilaahay diinkiisa lagu kari waayey, xaqa ilaahay raaci weysay, xumaan iyo fisqi ku jirtay habeen iyo maalin, iyo nin noocaas oo kale ah oo qabriga hadda la dhigay. marka la yidhahda ninkan ma taqaanaa, nebigu wuxuu yidhi, wuxuu dhahayaa laa innii samictu naas yaquuluuna shay-an faqultuhu. ma aqaan ani dadkoo wax dhahdhahayaan ayaan maqlay, waana iska dhahay. laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulallah oo dadka dhahayaanaan maqlay, anna dadkaygaan dhinac ka raacay. wax uu yahay iyo meel ay ka timid iyo kelimada wax loola jeeda maba ogiba. sidaa ayuu leeyihiin baa la yidhi dadka daalimiinta ah, ayuu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. riwaayad kale waxay leedahay, marka la yidhaahdo ma taqaanaa, wuxuu leeyahay haa, sida dameerkoo kaleu markaa u qaylinaa.
malaa'igtu waxay leeyihiin laa darrayta walaa tallayt, weligaa ha ogaanin, ha maqlin, hana aqrinin, garuun bir ahaa lagu tumaa buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. qabrigiisaa laysu soo ciriirinaa oo laysku keenaa ilaa feerihiisa ay iska dhaafaan, oo kuwii bidixda jirayna ay midigta soo maraan, kuwii midigta jirayna ay bidixda yimaadaan buu dhahay sala allahu calayhi wasalam. meeshaas ayuu ku jiraa dandarada iyo rafaadka ilaa qiyaamaha laga gaaro oo laga soo bixiyo ayay xaaladiisu sidaa noqonaysaa. meesha haddaan ku dhaafno ninkii daalimka ahaa, aan u gudagalno haddana aan ka soo biloawno axadka muslimka ah ee rabbi aaminay iyo gabadha muslimadda ah rabbi aamintay, taacada allah ku socotay, salaada wanaajisay, qiimaha diinka raacday, xijaabkeedii xiratay, qur'aanka iyo diinka ku dadaashay, sunnada nebiga raacsiisay, soonka iyo salaada iyo sadaqada iyo xajka iyo cimrada iswaafajisay, sida ay u dhimanayaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu yidhi nafsadda mu'minadda markay dhimanaysa maxaa loo dhahaa? yaa ayatuha annafsu almutma'inna irjicii ilaa rabbiki raadiyatan mardiya fadkhulii fii cibaadii wadkhulii jannatii. yaa ayatuha annafsu, nafsaddii almutma'inna ee xasishay, ku xasishay taacada allah, ku xasishay diinka allah, ku xasishay khayrka iyo xaqa, raacday awaamirta nebiga, nafsaddii saas ahaydey irjicii ilaa rabbiki, ka soo tag adduunkan mashaakilka, kurbada, walwalka, naxtinta, murugta iyo mashaakilka leh, waxaad soo aadaa rabbiga xaggiisa subxaanahu wa tacaala. irjicii ilaa rabbiki raadiyatan mardiya, adigoo raalli ah laga raali yahay. fadkhulii fii cibaadii, addoommadayda dhexdooda gal, wadkhulii jannatii, jannadayda gal ayaa loo dhahayaa buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. qofka mu'minka markuu dhimanayo asagana sidii daalimku u sakaraaday oo kale sakaraadku waa soo mara, waa shay laga siman yahay. ilaah wuxuu u soo diraa subxaanahu wa tacaala malaa'igtii naashitaadka ahayd oo nafta mu'miniinta si sahlan u qaadaysay. mu'minkii waa sakaraaday, meeshaas ayuu ku dhacay asagana, biyo ayaa lagu boobay iyo babis. ilaah subxaanahu wa tacaala ayaa maanta agtiisa uu aadi rabaa. waa aakhir yowmihi oo adduunkiisa ah iyo awal yowm oo aakhiradiisay u bilaabanayso. asagana ehelkiisii xaaskiisii ayuu dhex faaruqayaa. maanta wixii ka dambeeyuusan xaaskiisa la seexanaynin, maanta wixii ka dambaysuusan ilmihiisa dhexgelaynin, maanta wixii ka dambaysa ayuu ilaahay agtiisa aadaa. ilaah ninkaa wanaag ayuu siin doonaa. maca daalika dadkii ehelkii ahaa gaararkiisa ayay imaanayaan asagana. kallaa idaa balagat altaraaqiya waqiila maraaq, yaa ku tufaya ayaa la leeyahay. ninka yaa tufaya wadanna annahu alfiraaq, asagana faaruqitaan ayuu yaqiinsaday inuu adduunka ka tegaayo ayuu yaqiinsaday. maca daalika waxaa loo laqinaa laa ilaaha ila allah. idan talqiinta nebiga uu tilmaamay waa qofku marka uu dhiman rabo in agtiisa lagu yidhaahdo laa ilaaha ila allah, suu asagana u dhaho hadalkiisa ugu dambeeya uu laa ilaaha ila allah noqdo oo markaa jannada uu galo. man kaana aakhir kalaamuhu laa ilaaha ila allah dakhala aljanna, saan soo tilmaannay ayuu noqonaa. daalimkii waxaan soo sheegnay markii laa ilaaha ila allah dheh la yidhi inuu xoolo iyo xumaan iyo waxyaabo xaaraama uu ka fikiray ayaan soo tilmaannay. amaa qofkan mu'minka ah laa ilaaha ila allah dheh marka la yidhaahdo laa ilaaha ila allah ayuu leeyahay muxamadun rasuulullah. weliba muxamedun rasuulullah kuma darin nebiga ee wuxuu yidhi agtiisa ku dhaha laa ilaaha ila allah. marka laa ilaaha ila allah la xasuusiyo asagaa raacsiinaya muxamedun rasuulullah, waayo si fiican ayuu u yaqaanaa. yuhabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli haabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira. ilaahay ayaa waafajinaya subxaanahu wa tacaala. qofkaa dhimanaya waxaa loo bishaaraynaa ilaahay wanaagga agtiisa uu ku leeyahay subxaanahu wa tacaala. wanaagga ilaah agtiisa uu ku leeyahay ayaa la tusaa. qabriga waasicshadiisa ayaa la tusaa. waxyaabo fara badanaa loogu bishaaraynaa. maca daalika ayaa la arkay dad dhimanaya oo ilka caddaynaya oo qoslaayo. xaaladoodaas sidaas ah. waxay leeyihiin mar naga dhex bixiya meeshaan adduunka. ilmihiisuusan ka fikiraynin, waayo waa weli ilaahay. laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun.
ma cabsanayo mana tiiraayo ilaahay ayaa argagaxa oo dhanba ka ilaalinayo ka badbaadinayo qofka noocaasna waa dhimanaa malaa'igtu markay xayaatada ka qaado nafsadiisa waa la qaadaa samada ayaa la geynaa ciliyiin ayaa la geynaa daalimkii waxaan soo tilmaanay sijiin in la geeyey amaa qofkan kallaa ina kitaaba alabraari la fii ciliyiin wamaa adraaka maa ciliyuun kitaabun marquum yashhaduhu almuqarabuun malaa'igta muqarabiinta meelaha ay xaadiraan waaye meesha qofkaa la geynaya nafsadiisa waa la dhaqaa asagana waa la nadiifinaa waxaa loo qalqaalinaa ama laisku talagelaa in la duugo weliba rasuulku wuxuu yidhi qofka mu'minkaa meydkiisa ha ku xabisina calaa dahraanay ahlihi sariirta ha ku xabisina ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam nebiga xadiis kale ayuu ku yidhi isracuu biljanaasa janaasada ciyowda dejiya oo duuga hadday khayr badnayd oo nafsad khayr badan ee ahayd fa kayrun tuqadimuunaha ilayh khayr ayaad u gelinaysaan hadday naf shar badan ahaydna fa sharun tadacuuna can riqaabikum waa shar qooraha idinka saarneedoo ciyow iska dejiya buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam idan qofka inta la sii dugsugaayo oo la leeyahay ha la duugo dadku waa dharara asaga oo wuxuu aad u jecel yahay in ciyow laga bixiyo oo ilaahay agtiisa la geeyo subxaanahu wa tacaala waayo shooq iyo hilow ayuu u qabaa ilaah subxaanahu wa tacaala idan qofka marka xaaladiisa sidaa la dhigay muslimka ah asagana waa la mid qofkii kale karfanaha ayaa loo gelinaa xoolihiisii ayaa laga tegaa waa xoolaha maanta aan kasbayno oon shaqaynayno oo dartood aan salaada uga tegayno waxaa laga yaabaa inaanba dukaninba in allaale intaan hawsha adduunka hayno waxaa laga yaabaa 5 salaadoodba cishaha in la jamciyo oo subaxii laga tago duhurkii laga tago casirkii laga tago 5 salaad sidii dayn ilaah uu kugu lahaa oo kale hal mar iga tirsan la leeyahay xaaladaha noocaasa wixii aan ku kasabnay oo xoolo ah ayaa maantana laga wadaa wallaahi xataa inaan sariirtaada korkeeda lagugu dhaqaynin ee waxaa la leeyahay naga halaynine dejiye ee dhulka ha lagu dhaqo maxaad faa'iido heshay markaa idan qofka muslimka waa inuu aad ugu dadaala aakhiradiisa adduunka intuu ilaah ugu talagalay waa inuu ku socdaa waa inuu wixii adduunka loogu talagalay khayrkiisa uusan dhaafin waa inuu si nadiif oo wanaaga u raadiyaa nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi naf dhimanaysaa ma jiro ilaa wixii loogu talagalay ay jiibkiida soo gasho buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam wixii ilaah kuu qoray adoon helin adduunkan ka tegi maysid fattaquu allaha waajmiluu fi alab buu yidhi nebiga war ilaahay ka cabsada ee dalabka qurxiya sidaad wax u raadinaysaan si nadiif oo xalaala ha noqoto si xaaraama waxa ku raadinina waxaad wax ku raadisaan hab nadiif ah ilaahay diinkiisa iyo adduunka hadduu ishor yimaado adduunka gadaal mariya diinka ilaah hormariya subxaanahu wa tacaala waad u jeedaa maanta haddaad saa samayso oo si kasta wax u kasabto waxaa la geliyey dhaxal adiguna malihid xoolaha aad shaqaysatay xaaladda noocaasa qofku waa inuu mar walba ku dadaalaa ilaahay agtiisa wanaag ayuu ka gaaraa marka la karfino qofkii mu'minka ahaa asagana waa la qaadaa oo sariirtii janaasada lagu qaadaa rasuulku wuxuu yidhi nafsadda dhimatay ee janaasada la wado hadday tahay naf saalixad ah qaala qadimuunii war idedejiya ciyow igeeya qabriga ayay leedahay buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam kistaa baabuurka la joojinaayo ayaysan ogolayn kistaa la daahinaayo ayay ogoleen kistaa albaabka la furaayo dhararsanaysaa qadimuunii ayay leedahay buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam war iwada ciyow qabriga igeeya iwada qabrigayga igeliya war meeshaan iga wada oo dhibka iyo rafaadka leh sidaa ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam nafsadda saalixadda ay ku hadlaysaa maalin baa nebigoo fadhiyan qof dhintay lasoo agmarsiiyey markaasuu yidhi ama waa istareexay ama waa laga istareexay qofkan buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam maxaad ula jeedaa ayaa la yidhi wuxuu yidhi haddii qof fiican uu ahaa oo ilaahay diinkiisii ku socday wuu istareexay tacabkii adduunka mashaakilkii dhibaatadii ayuu ka istareexay ilaahayna wanaag buu siinaa subxaanahu wa tacaala hadday tahay naf xunna waa laga istariixay waay nafsadda xun meel kastay joogta nacladda allah ku soo degta qofka aan salaada dukan guryaha uu joogaa lacanada raashinka uu cunayaa lacanada dharka uu xiran yahayaa lacanada geedaha lacanada way nacayaan waxay leeyihiin naga dhaqaaq waa laga istariixay buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam haddaba qofkan asagana waa la wadaa qabriga ayaa la gelinaa qabriga marka la geliyo nebiga ayaa loo soo miihaalayaa salawaatuullaahi wasalaamun calayh waxaa la leeyahay ninkan ma taqaanaa markaasuu leeyahay nacam
هذا محمد جاءنا بالبينات فأجبناه واتبعناه هو محمد هو محمد هو محمد 3 مرات 3 مر أيو كعل علنا وتلذذ وكمع عن سنايو نبي عيسى صلوات الله وسلام عليه نعم بولي ها محان أكسي ونبي إلى صلوات الله وسلام عليه جاءنا بالبينات فأجبناه واتبعناه وان رعني وانا أجيبني هو محمد ساسو ليهي ملائكته إليه نم كنائم العرس هرد نيهو سيدا قفك أراسك وأهرد أوكال أهرد حديث كلا وحور نم صالحا هردفي عن أو صالحة هرد واكو أغين نم موقن أو يقينسان إنا تهي أيانكو أغين سؤاشان أنكو ويديني وحكلا معها سؤال أنا حد أن ربني إنانكو أغانا معها لكن والسؤال ظهور أو أنكو موجينيني لكن الموقن إنا تهي ukasisnayn waa ku ogeyn ninka arooskaasuu u hurdo oo kale u hurud waayo qof mashquuliyaa ma jiro ilaa qofku adduunku ugu jecel yahay oo ehelkiisa ah maahane qabrigiisa ayaa la waasicinaa intay ishiisu aragto 3 shubaaka ayaa loo fura oo uga soo gala wanaagyo iyo qiimo fara badan ayuu nebigu yidhi salawaatullaahi wasalaamun calayh markaa wixii ka dambeeyo meesha isaga jira asagana ilaa qiyaamaha laga gaaro oo saacaddii qiyaama ay dhacdo oo markaa ka bacdi qabriga la iska soo bixinayo sida ilaahay uu tilmaamay ballantana uu ku qaaday subxaanahu wa tacaala haddaba labada hab ayaa loo dhintaa qofka daalimka habkaasuu u dhintaa qofka muslimkana xaaladiisa sidaasuu habkaasuu u dhintaa wax la dhaafayaa ma jiro qof kastaa waa dhimana kullu shayin haalikun ilaa wajhah shay kastaa waa halaagsamaa ilaa wejiga ilaah maahane kullu man calayha faan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام شيء كستا وبابا أيان وحاهر يوجه إله أو كرامة إي شرفت له سبحانه وتعالى بعدما قف كستا أو دمنايو قف البودذال ديار قرو دينك إله كدذال قيريدها كوت ماذا أذيقو طاعة إله كجرا يكو إيمان أذيقو معاسي ألا كجرا islaan ayaa sujuudsan dhimatay waa la toosin waayey sujuuddeedii ayay ku sugnayd waa la dhaqay ayadoo sujuudsan waa la karfanay ayadoo sujuudsan janaasaa lagu dugtay ayadoo sujuudsan qabrigaa la geliyey ayadoo sujuudsan waa la duugay ayadoo sujuudsan sujuud ayaa lagu soo bixin doonaa yowma alqiyaama in shaa allahu tacaala waayo nebigu wuxuu yidhi yabcathu allah kullu axadin calaa maa maata calayh qof walbaa wixii uu ku kor dhintaa lagu soo bixiyaa qiyaamaha kii asagoo gurbaan tumaya ku dhintaa saasaa lagu soo bixina kii asagoo ku dhintaa xumaan iyo fisqi asagoo ku jira saasaa lagu soo bixinaa qof walba wuxuu ku dhinto ayaa lagu soo bixiyaa xadiisku wuxuu yidhi qof walbaa wuxuu ku barbaara ayuu ku duqoobaa qof walbaa wuxuu ku duqoobuu ku dhintaa qof walbaa wuxuu ku dhintaa lagu soo bixiyaa qiyaamaha yoonkeeda sidaa darteed qofka muslimka ahow ku dadaal khaatimadaada inuu ilaahay wanaajiyo wanaagga iyo diinka ku soco ilaahay ayaa qiimo fara badan ku siinaayo war adduunka maanta ma harin ilaa subaabaka subaabata alinaa reereeb oo weelka reereedkiisa oo kale oo qofka cunaaya uu rabo inuu isku keensado ee hal mar uu afka gashto cali bn abi aalib wuxuu yidhi adduuni aakhiraba ilmo ayay leeyihiin ee fakunuu abnaa'a alaakhira walaa takunuu abnaa'a addunyaa war ilmihii aakhira noqda oo ha noqonina ilmihii adduunka dhammaanteen maanta adduunkii ayaan raacnay geeridii waa hilmaannay ilaahay diinkiisii waa hilmaannay subxaanahu wa tacaala ajasheenana meel loo soo joogaa ma jiro maanta qof baa dhintay beri qof kale hadduu dhinto maalinta kale adaa dhimanaayo yaqiin buu ilaahay ku magacaabay subxaanahu wa tacaala inay imaanaysaa yaqiin ah qof kastaa inay soo maraysaa yaqiin ah allaan ka baryaynaa inuu sakaraadka noo khafiifiyo ilaahay ayaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuuna garansiiyo na xasuusiyo inaan adduunkan ka tegayno wallaahi maanta kulligeen adduunkii ayaan raacnay adduunkii waa nagu cayaaray ilaahay nebigiisa sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qof allaala qofkii hamigiisa ugu weyn adduunka uu noqdo ilaahay fakhri ayuu labada indhood inta u dhaxaysa looga dhigaa qabri ee qalbigiisa lagu dhigaa ma hela adduunka ilaa wixii ilaah uu ugu talagala maahana subxaanahu wa tacaala qofkii hamigiisa ugu weyn aakhiro uu noqdo ilaahay wanaag ayuu siinaa adduunkana asagoo raadinayo u imaanaa buu dhahay nebiga salawaatullaahi wasalaamun calayh laakiin annaga maanta adduunkii waanu orodnay qof kastoo hadlaayo waxaad arkaysaa adduunaan burinaayey adduuna saan igu noqda inuu
inuu markaa dhahayo wax laga haayo iyo wax laga helayna uusan markaa jirin low aan aakhira hamigeena weyn ka dhigan lahayn adduunka asagoona soo raadinayo ayuu noo imaan lahaa caaisha radiallahu tacaala canha ayaa xoolo fara badan maalin loo keenay qoraxdu ma dhicin baa la yidhi kulli way wada qaybisay gabadheedii mawlada ahayd wayna soonaayeen labadooda ayaa tiri yaa ummaah hal dirham nooga reeb lacagta aan hilib ku soo gadano waa soomanaysaan ugu afurno gabadhaydii maxaad mar hor ii xasuusin weysay bay tiri maba xasuusaninba xaaladda noocaas ah ilaahay waxaa xaq uu ka dhigay qof kastoo adduunkan raaca inuu duleeyo waa hadduu diinka ka leexdo qof kasta oo aakhiro raaca oo adduunkiisii intii loogu talagalay ka ogaadana inuu ilaahay wanaag siiyo subxaanahu wa tacaala cajrad baa lagu magacaaba adduunka ilaah wuxuu yidhi man kaana yuriidu alcaajilah cajalnaa lahu fiiha maa nashaa'u liman nuriid qof allaala qofkii caajilada iyo adduunka doona oo adduun keligiis hamigiisa uu noqdo man kaana yuriidu alcaajila cajalnaa lahu fiiha maa nashaa waxaan doonno ii liman nuriid adduunaan rabaa xataa intaa rabtid ma lagu siinaayo laakiin intii ilaahay rabaa lagu siinaa subxaanahu wa tacaala uma jacalnaa lahu jahannama yaslaahaa jahannamo ayaa loo fidinaa gogol buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala waman araada alaakhira wasacaa lahaa sacyahaa wahuwa mu'minun faulaa'ika kaana sacyuhum mashkuur qof kasta oo doona aakhiro u camal qabta u shaqaysto u dadaala asagoo mu'min ah kuwaasaa camalkooda mashkuur ah ninkan adduunka keligiis doonay iyo kan aakhira u dadaalayba kullan numidu haa'ulaa'i wa haa'ulaa'i min cataa'i rabbik wamaa kaana cataa'u rabbika maxduur nin walba wuxuu ugu talagalo ilaah adduunka ka siinaa mana laga qadinayo buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala bacdamaa xaaladaynu ay sidaa tahay adduunka annagaa naloo qalqay sida ilaah uu tilmaamay subxaanahu wa tacaala adduunka iyo waxa ku jiraba idinkaan idin abuuray buu dhahay ilaah idinkaa iskaloo laydinkugu talagalay idinkana ana idin qalqaday buu dhahay ilaah cibaadadeedaan idin abuuray ee shaygii idinka laydin abuuray ha uga mashquulina waxaan aniga idin dirsaday buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala xadiisulqudsi haddaba qofka mu'minka ah mar walba waa inuu dadaalaa xaqa ilaahna uu ku socdaa subxaanahu wa tacaala waayo qiyaamaha dhibaatada badan ayaana sugayso haddii xaaladdu ay sidaa tahay oo sidaa loo kala duugan yahay markii dambe waxaa la gaarayaa inuu koonkan isbeddelo waayo weji cusub ayuu la imaanaa markaa ka bacdina waxaa la aadayaa qiyaamo oo ilaahay hortiisaa la tegaya subxaanahu wa tacaala qiyaamaha intaan la gaarin aahaaryo iyo calaamado ayaa jira lagu ogaanayo in qiyaamuhu uu soo dhowaaday waxaa ka mid ah dadka in xishoodku ay ka tegi doonaan waxaa ka mida dumarku inay sariigtii xishoodka ka tegi doonaan inay badan doonaan buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam ragguna ay yaraan doonaan herjiga iyo dilkaa badan doona buu dhahay nebiga salawaatuullaahi wasalaamun calayh waxaa la gaari doonaa wakhti qofkii la dilayna uusan ogeyn sababtii loo dilay kii wax dilayna uusan ogeyn sababtuu wax u dilay waxaa la gaari doonaa buu dhahay aakhiru zamaanka nebiga wakhti qofku uusan u kala aabbayeelin awa min xalaal awa min xaraan waxaan xalaal miya mase xaaraan waay laakiin raadin doona say gacantiisu ku soo gasho ilmuhu caasi bay noqon doonaan waalidkaa jilicsanaan doona sidaa ayuu nebigu ka hadlay salawaatuullaahi wasalaamun calayh haddaba xaaladda markay meeshaa gaarto waa la soo bixi doonaa cajaladda nambar 2 waxaan ku bilaabi doonaa ahwaasha qiyaamaha iyo dhibaatada ilaa jannada iyo naarta laga gaaro wabilaahi towfiiq wallaahu aclam